mid ka mid ah shilalka ugu qariibsan dunideena ayaa xalay ka dhacay halkan oo ah buundada la yiraahdo Brooklyn Bridge ee magaalada New York. Tobanaan qof ayaa dhaawac halis ah ka soo gaaray shil markabeedkan yimid kadib markii markab tababar oo caynkiisa la yiraahdo Navy Ship lagana leeyahay dalka Mexico ku dhacay buundadan badda dulmarta oo joog ahaan markabku ka dheeraa. Markabka oo joogiisu dhammaa 145 feet, dad badani waxa ay isweydiinayaan sida naaquudihiisu u arki waayay inuu ka joog sareeyo uusan ka dusi karin buundada. Xog ayaa warisay in shilkani u badan yahay mid daraag sababay, halka qaar kale wariyeen in markabka cilad farsamo ku timid oo uu fareenka goostay ka hor inta uusan buundada gafuurka ku qaadan. Tan qariibka ah ayaa in la arkayo sailors ka soo hoobanaya saqafyada ugu sareeya markabka ee ku dhacay darbiga buundada, kuwa oo si caadi ah u arkayay khatarta ku soo wajahan inta aan shilku dhicin ka hor, taa oo la fahanteedu qariib ahayd. Inkastoo weli baarisi ku socoto waxa shilka naadirka ah sababay, haddana waxa uu goor horeba safka hore ka galay kuwa ugu fajaca badan ee horey loo diiwaan geliyay.